maanta waa maalintan uu tusabay in badan qalbigayla ooyayo aan ku taamay in badan farxad baan dareemayaa farxad saa'idoo daran xafladan sugaynayo xaflad qaaliyo hufan waxaan la jiboonayaa jawi qaaliyo wacan galladee bahay unbaa maanta buuxda oo sugan maa ilaysba maa iftiinba mise qalbigay shidan haka daalinuu dabaaldegdabshida durban utun haka soomin haka leexantan unbaa ah barkulan dadka meesha soo tuman antumuu khayra alumam maanta waa maalintan uu tusabay in badan qalbigayla ooyayo aan ku taamay in badan wax dhaxan dadaalayo dulqaadan iranan hurdadii ka cagnayo ka hayaani meel dadan wax dhaxan ka soonayo ka dhaqaaqna gel qalan wax dhaxan dartii u seexday meel habaas leh oo ba'an guusha waxaan horseeday galladaasi waa qalin inta geesu baydhay gurtidiinu may dhalan caqligiinu waa maran gaabaygiinu waa xiran maa hadday sinaanayaan caalimkiiyo mid dhaqan maanta waa maalintan uu tusabay in badan معهد إمام الشافعي للعلوم الشرعية والعربية وحال فري لبدي كنت ذي توانكي معهد كان وحو بحياء شرع الإسلام كا يو علوم عربية يو أساسيات كحبرشدة لله يحل كانوا والشقين دفعنا ودفعتي صدح هذا وكقال جبيسي ومعهد كان لما يسوي الحمد لله معهدكم مركا وحاو صوص على جيل كاس أدو جودان وكوه بيسان شرع الإسلام كا معهدka waxaa tamwiiliyay oo dhisay oo ma garanaysaa gurigan quruxda badan u dhisay Allah barakeeyo Dr. Isa Hamdi Haji Maxamed Yaxye iyo Dr. Abdulcasiis Allah barakeeyo maalkooda iyo caafimaadkooda Allah u barakeeyo ilaa maalintii ay dhiseen iyo maantayna sidii maalintaas u dhiseen bay u garab taagan yihiin hiiliho iyo wax kasta u baahan yahayna ayaga ayaa garab taagan qurxintiisa ka shaqayntiisa dadka idaareynaya nadaaminaya noloshooda Allah barakeeyo anu ducayna dadkaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo oo adan garanaysan Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu man sana ilaykum ma'ruf kafiu qofkii wanaag idin gala oo abaal guda fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u lahu hadina helin waxaad ugu abaal gudaana u duceeya marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa dambi dhaaf runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaana la jooga Dr. Ahmed Xasan oo wakiilka ah دكتور كوا مشغولي هؤلاء ومقرن صداريا كويمد دكتور أحمد بن لجوا إن شاء الله تعالى فرينتي دكتور ك إنه وذينه شيء دونا لما أنت كاتير هذا كلا إن جلسوا قبل حفلتنا وأديات بأمهات سنين حفلتنا مركوا أرض داس شان لواتنا أرضي وهي وتدوق قبلات يشند تطبيق سدي تونويل أيه وهي قلنا جمينيسة سدي تونويل يتدوق قبلات أيه قلنا جمينيسة سنة كان لو كون لبي لا تنصدح اللاتن وأنا دفعتي صدحات سان شاقني أرضانو waxay soo qaateen culumta sharciga waxa kale oo dheeraa oo ay qaadan jireen xalaqaadkii masjidka marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa ayagana Ilaahay inuu guul siiyo diinta la baray iyo culumta la barayna kuwa ku intifaacsada oo umadooda uga faa'iideeyo Ilaahay inuu ka dhigo jaamacadaha la jooga dhalinyarada marka heerkii koobaad waxbar heerkii asaasiga ah bay ka soo gudbeen waxay u baahan yihiin jaamacado iyo ma garanaysaa in waxtar loo sameeyo oo la garab istaago dadkii khayrkan horay u wadayna insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa ayaguna inay ay runtii ka qayb qaadan doonaan oo aan uga baranay jaamacadaha iyo dadka kale hal doorkana la joogan insha Allah ta'ala dhalinyaradaas waxaan ka codsanaynaa inay saacidaan oo halkaas banaanagu uga ayaan intaasaan u soo gaarsiinay aqoontoodii macadka shariicadan ka soo saarnay shahaadada dugsiga sare aan siin doonaa insha Allah ta'ala marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa jaamacadaha iyo dadka kale oo maxaan ku raaddaa khiyaarta ay hawshaas ka qayb qaataan aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa waalidiinta iyo dadka deegaanka degan oo si dhow noola shaqeeyay
oo xafladahan iyo waxyaabo kale fara badan oo anshida aan sameeyno nagala qayb qaata aad iyo aad baan ugu amaanaynaa magaaladan iyo deegaankan cagaaran runtii waa deegaan waxbarasho oo aad ugu sii wanaagsan waxbarashada diiniga ah waxaa ka jira magaalada madaaris taxfiid quraan ah oo magaranaysa quraanka lagu xifdisiyo ardada oo 2 sano ah 2 sano quraanka ardayga lagu xifdisiinaya maxaan ku yiraahdaa xalqo ayaa ka socota oo midiiba ay dhigato 30 arday ilaa 60 arday ku dhow oo magaranaysa quraanka la xifdisiyo ayaa magaalada ka furan sanad korona waxa qalin jabiyay intaas oo kale oo quraanka dhameysay oo hadda loo akhriyo duruusta sharciga ah macadkana dhigto galina waxay dhigtaan duruusta sharciga iyo kutubta loo akhriyaa qaar kamid ah waxaan rajaynayaa insha Allah taala halkan magaranaysa anshidadan maanta sameyn doona inay nagala qayb qaataan ardadaas runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa xafladan quruxda badan reer cagaaran waxaan leeyahay way nasiib badan yihiin aad iyo aad bay u nasiib badan yihiin nicmada ay haystaan inay ka mahadceliyaan baa la rabaa oo ka faa'iideystaan marka waxaan dhihi lahaa ardada macadka ka baxday oo shariicada baratay gabdho iyo wiilalba dadaal badan sii sameeyay inta uga harinina cilmiga aad barateen yeesan maaragtay waad aragteen jiilka dhalinyarada oo maanta jooga oo rag iyo dumarba leh oo in isqaawiyaan hadda ku siganaya dadka inay idinku dayan baa la rabaa oo dad wanaagsan oo diintii ka muuqato inaad noqotaan oo culimaa gabdho iyo wiilalba macallimiintan hadda waxay idin dhigay inaad bedeshaan baa la rabaa ragga hadda macallimiinta ayaa waa ragga cagaaran wax ku bartay qaarkood badankoodu marka idinkuna inaad wadadaas qaadaan baa la rabaa ee idin maaragtay ka leexan insha Allah intaasaan idinkula dardaarmayaa waalidiintana waxaan dhihi lahaa fursadaas aad haysataan cid haysata ma jirto guriga quruxda badan oo dhakhaatiirtu idin dhiseen meel laga dhisay ma jiraan gobolada lagama dhisin inaad ka faa'iideysataan baa la rabaa oo wax ku barataan oo rag iyo dumarba dhammaantiin waa idin furan yahay habeen iyo maalinba dadkii wax idin bari lahaa haddii idin diyaarsan inaad wax ku barataan baa la rabaa ragga waaweyn oo waalidiinta ah laftigoodu fursad baa iska lumiyeen geedahan suuqaa la fadhiyaa iyo laamiga meesha inaad wax ka faa'iideysataan baa idin fiican oo macadkaad gashaan rag hadda ka faa'iideystay baan ogahay ayagoo ganacsigoodii iyo odayaal macadka ka baxay baa jooga oo macadka hadda dhigta rag iyo dumarba waxaasa gabdho iyo wiilalba baa dhigta marka rag waxa jira wax walba soo toosa oo jidka iyo laamiga fariista siday u fadhiyaan bisalaada xataa ragcada u dambeysay soo gaaraan wax xigmada uma fadhiyaan waa fadhi ku dirir iyo wax dambi looga qorayo marka insha Allah macadku waa idin furan yahay bilaash buu idinku furan yahay inaad ka wada faa'iideysataan oo dadka waaweyn baa macquul ah inay meesha ka faa'iideystaan way ilmo adigu kugu dayanaya dad adiga aabba tahay oo fadhi ku dirir ka sheekeynaysid oo xan ka sheekeynaysid deelmihii waa leexanaya laftigiisa marka fursadda idin ka faa'iideysta guriga quruxda badan oo la idin dhistay ka faa'iideysta magaalada nimcada haysta ka faa'iideysta insha Allah inaha saan dhihi lahaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wa khaliqin naasa bi khuluqin hasan akhlaaq wanaagsan bani aadamka kuwa ka waaweyn iyo kuwa kula ka yaryar iyo kuwa kula egiyo kuwa kula fasalka iyo kuwa kula guriga aba dhaqan wanaagsan oo ixtiraam leh oo qadarin leh oo maamuus leh oo dulqaad leh oo sabir leh adoomada Ilaahay kula dhaqan dhammaan sharaa'ixdooda iyo noocyadooda iyo da'dooda kala duwan wa khaliqin naas bi khuluqin hasan wa waxlayna amriga akhlaaqda wanaagsan diinteena agteeda aad u qaaligu ah intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa jazaakumullahu khayran أصحاب الفضيلة عمداء الكليات والجامعات والأساتذة الكرام أعضاء هيئة التدريس الآباء والأمهات الضيوف الأعزاء الأحبة والأصدقاء والزملاء الخريجين والخريجات وكل من ساعدنا للوصول لهذا اليوم الهام والمميز في حياة كل طالب وطالبة نحييكم بتحية أعلى من العسل تحية ريحها كالعطر والورد والمسك والعنبر تحية قالها شاعر عليكم بأحبتها السلام وأضحفكم برحمته سلام وبواءكم مساكن طيبات تحية من تبوأها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى هذا السياق لو حنكون سود وينيا أرضا يجونا غيب كم ذا صدق حردي من ويري دونا إن شاء الله تعالى عبد النور شيخ أحمد محمد يا محمد شمال يا أحمد عويل وإنا آخر دونا يجونا كلمات قبل يوقف صابسن حق أخلاقياتك
سوري هذا أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويدر ما بعينك لو عقلت ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجبال إذا ضللت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه ضعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مضاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه عنيق روض ولا خذر بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن ضعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت فإن أعطيت فيه ضويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست الشاء والمرتفق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم باهرة كثيرة ثم الصلاة مع سلام دائما على رسوله القريش الخاتم وآله وصحبه الأبرار وحازين المراتب الفقار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك لقواعد جميعة المسائل الشوارد ترتقي في العلم خير مرتقى وتغتفي سبل الذي قد وفقا annaga daana jaamacadda bariga Afrika macadka isku mucusbin intii la bilaabayba waynu taagnayn waxaynu maartay guusha aan ka midnahay in macallimiinta wax ka dhigay badankooda yihiin ardaydii cagaaran wax ku bartay kadibna jaamacadda wax ka soo dhigtay haddana way dhigtaan dufcad walba ka soo baxda waxaan u sameynaa ardayda laba jaanis waxaan aqbalnaa ardayga koowaad ee jaamacadda macadka ka baxa waxa la siiyaa minxa daraasiya ama scholarship dhamaystiran oo aan fee laga rabin oo uu ardaygaas 4 sano jaamacadda u dhiganayo horeyna u dhigan jireen midka cusubna waan soo dhaweynaynaa maamulka iskuulkana noo soo sharaxay waa ardayga u horeeya insha Allah inta kale waxa weeye ardayga gaalkacay iman kara oo wax la dhigan kara ardayda kale jaamacadda u dhiganaya gaalkacay iyo ardayda wax la wadaaga ardayda aan isbuuc aan gaalkacay joogi karin waxa loo sameeyaa in weekendiga ama aakhir usbuuca ay wax dhigtaan oo xiisadii oo dhan ay dhigtaan ayadoo duruufta loo fiirinayo ayadana waa la yeelaa inta waxa si dheer ardayda hadda xaajadka iyo duruufaha way iska adag yihiin ku adkaato wixii la qaban kara ayaa la qabtaa waxaan rajaynayaa marka jaamacadda maadaama ay waqaftahay ummadda u shaqeyso in ardaydaas ay maal gashanayso ay naftooda anfacaan ummadana anfacaan macadkaan dadka ka baxay waxaan u rajaynayaa diinta iyo horumarka gobolka iyo adduunka iyo Soomaaliya inay wax ka qabtaan runtii aad baan bulshada degmada degsiimada cagaaran ugu mahadcelinayna juhdiga iyo dadaalka iyo isbedelka runtii ka muuqda oo dhanka waxbarashada ah waxaan isleenahay bulshadeenu waxa ugu muhiimsan ay ku horumari ka dhaw aqoontaas oo aqoonta ayaa wax bedeli ka dhaca hadaan rabno inaan bedelno magaaladeenan cagaaran ka dhigno wadooyinka u sameeyno horumarno dhan walba ay ka horumarno waa in aqoonta sidaas tartanka iyo dadaalka iyo juhdiga loogu bixinayo runtii la sii laba jibaara insha Allah isbedelku markaas wuu imaanaya waxaad hiigsanaysaa jeceshiina waa gaari doona insha Allah dabcan waxa ardo ka qalin jabinaysaa waa culumta shariicada sidii jaamacadihii dhamaan idinku ballan qaadeen kulli jaamacadda badda casna qaybta shariicada iyo qaanuunka way leedahay oo qaybta boosaas ah ayadana insha Allah wixii culumta shariicada baranaya
waa ka qayb qaadan doonaa insha Allah ballanqaadkayguna waa diyaar maamulkuna oo soo gudbin doonaa insha Allah waxaan kelimadoodii halkan ka jeedinayaa iyadoo kooban asaasayaashii markaskan iyo qaybaha hoos yimaado oo dhan labada doctor oo Ilaahay ka baryayna inuu barakeeyo labada doctor waad ogtihiin waa dhaqaatiir shaqada dhakhtarnimaduna wax waqti leh oo 24 saac waqti ka mid ah aan loo baahnayn ma jirto shaqooyinka ay hayaan darteed ayaana keentay inay sanadkan suurtoobi weydo inay ka soo qayb galaan halkan marka waxaan ka soo jeedinayaa kelimadoodii oo xambaarsan laba qaybood qaybta koobaad oo ah hambalyada ku aadan ardada qalin jabinaysa iyo maamulka sababta u ahaa inay qalin jabiyaan macallimiinta sababta u ahaa inay qalin jabiyaan iyo waalidiinta ku soo dadaalay ee ka qayb qaatay aad iyo aadna ugu dadaalay inay ardadan u suurto gashay inay macadkan dhammaystaan iyo fariinta labaad oo ah salaan ku aadan guud ahaan mujtamaca magaaladan degan gaar ahaanna maamulka magaaladan oo hadda isagu sababta weyn iska leh inuu macadkan iyo markaskanba uu guulaysto oo de iska xil saaray in markaskan iyo macadkan baahiyaha uu u baahanayo oo magaalada uu uga baahdo kulligood xil gooni iska saara iyo salaan ku wajahan guud ahaan ka soo qaybgalayaasha la filayay markii iyagu ay salaanta soo dhiibayeen ay ka soo qayb galaan oo madaxda sharafta leh ee gobolada kala duwan ka timid hay'adaha tacliinta ka shaqeeya haddaba la tilmaamay inay macadkan iyo markaskanba garab istaageen mu'assasaadka khayrka ka shaqeeya ee qaybo ka midii ay joogaan salaantaasna inaan halkan ka soo gudbinno runtii waa farxad aan la soo koobi karin taasi waa middaas midda labaad macadkan ciddii aasaastay oo dhistay oo labada doctor ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaankooda xasanaadka inuu ilaahay ugu daro waalidiintuna hadday maaragtay ku dadaalaan inay ardadooda baraan shareecada islaamka waxa weeye jiilku waa isbedelayaa hadda cagaaran xaaladda hadda lagu yaqaanaa waxa weeye waa cilmi baa lagu yaqaanaa weliba midka diinigaa bay aad runtii markaan loogu maartay xantaa waanan ognahay xilliyada qaar meelihii la joogay ilaahay mahadi weeye waa taqyiir dhacay anoon badinaynin waxaan leeyahay ha la dhiirigeliyo oo ha lagu barbaariyo in kulliyad shareecada islaamka la barto kulliyad hadday tahay iyo hadday macad tahay intaba waxaan kaloo anigu leeyahay maadaama galabta halkan nasiibkaygu uu noqday inaan soo istaago hadda waa ii dayatay baan u malaynayaa maadaama ay jaamacadda ii sheeg bariga afrika ay ardaygii koowaad qaaday aniguna ardayga labaad oo kaalinta labaad gala ayaan waxaan ka bixin doonaa minaxa daraasiya oo jaamacadda kulliya shareeca intaasaan maaragtay aniguna aan isku dayayaa inaan ballan qaada ilaahayna hayla garab galo idinkuna waa mahadsantihiin meeshaan xafladdii saddexaad baan u malaynayaa reer cagaaran way guulaysteen waana nimcaysteen laakiin nabcadu weli ayay ku silantahay nama soo gaarin annaga weli hadda waxay leeyihin waxaana la siiyo annagu waxaan rabnaa qorada nabadu ka timid in noo ballan qaadayn arda noo haynayaa waxaan ka rabnaa ilaa 5 iyo 4 wiil iyo gabdho oo qur-aanka noo xifdisiisaan waa maxadka noo dhigata waagi hore miyiga jil baa la oran jiray ilmaha wax la barahayo reer hebel qoys baa lagu jiraa la oran jiray 5 iyo 4 noo jishaan baan ka rabnaa haddii ilaahay idmo intaasna waa intaas ma hadda ilaahay kadib waxaan u mahad celinayaa oon u ducaynayaa oon u hambalyaynayaa ardayda ka qalin jabisay macadkan qiimaha badan oo galabtoo dhan laga sheekeynayay waxaan kelmaddeeda ku soo koobayaa 2 kelmadood kelmadan ardayda leeyahay iyo kelmad aan leeyahay reer cagaaran kelmadda aan ardayda leeyahay ardayda xil baa idin fuulay
quruxdaas galabta idinka muuqata iyo labiska quruxda badan iyo farxadda aad dareemaysaan iyo jamaca tirada badan oo isaga kala yimid meelo badan iyo gobollo badan waxaa mas-uuliyad baa idin fushay waxaan rabnaa waalidiintu inay qudwo u noqdaan ilaa waxaa la yimog tahay oo qur-aanku uu tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana uswada iyo kudayashada ilmaha waalidku ka qaataa waxay dhahaan qolyaha tarbiyadu gabadhuna tarbiyada waxay ka qaataa hooyada ilmuhuna wuxuu ka qaataa wiilkuna wuxuu ka qaataa aabbaha haddii hooyadii ay xijaaban tahay kitaab qur-aan gacanta ku sidato madrasada u sii socoto odaygina salaada jamaacada u sii socdo masaajidka bayna cishaayinka uu fadhiyo qur-aanka uu akhriyo xilligu hor yaallo ilmuhu hagaagaya waxaa ka soo gudubteen dugsi dhexe waxaa ka soo gudubteen mid sare maanta heerkii saddexaad ama heerkii koowaad ee jaamacadeed baad rabtaan inaad u tilowdaan wax badan baa laydin bishaareeyo laydinku yiri jaamacadda anaa qaatay kan koowaad iyo kan labaad ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka ajir siiyo jaamacadaha iyo haddii alla kuu ran yahay isimada ee u bareeray culayskiinna annaguna waxaan leenahay dadku waa soo saarid la rabo bulsha inay soo baxdo dhiiragelinta noocaasa wax loo samaynayo laakiin ma ahan wax layska oranayo idan waxaan leeyahay war aynu dadaalno waxaynu ummadda ku bedeli karnaa nafteenna ku bedeli karnaa bulshadeenna ku hogaamin karnaa hadba heerka aqoonteenna iyo dadaalkeenna uu joogo nudqada saddexaad aan dardaarmayaa waxayd inaynu noqonno ducaad inaan noqonno waxaan runtii si gaara ugu mahad celinayaa oo mar saddexaad iyo mar afraadba u mahad celinayaa nin ka mid oo macallimiinta deegaanka cagaaran waa ninka la yidhaahdo khadar ismaaciil wacays yacni noloshayda dhabar adayg noocaas in badan baan macallinnimo ku soo jiray noocaas qof ugu dhabar adag macallin inuu ku noqdo waxaan xasuustaa sanad aan magaalada ka shaqaynayay salaada subaxiga markii laga baxo shaqada bilaaba 3 saac oo hameennimana cishaha kaga taga asagoo xiisada firiya bixinay dacwo waxaan dhigi karnaa oo runtii u dhabar adaygay oo dadaal badan ku bixiyay ayuu in badan magaaladu hay asaga iyo ragga la midkaaba ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaankooda u saar dhalinyarada marka waxaan leeyahay dacwada tabliiqaynteedu maxay tahay maxaa daaci ku noqon kartaa koow waxa aan naqaano dadka inaan barno waxa laga yaabaa inta maraakistaas aan iska haysanaa nin walba inuu macal Cabdinuur intuu maamul Cabdinuur u yimaado oo yiraahdo maamul ana habeenkii xiisada firiya bixinay midda koobaad cilmigaaga ku kordhaya midda labaadna daaci baad ku noqonaysaayo waxa si aad u gudbisid baad baranaysaa waxaanu ka mu'assasa ahaan shahaadooyin ugu talagalnay runtii Dr. Cabdilaaziz oo aan inoo imaanin oo aan leeyahay asaga iyo usradiisaba ilaahay tabaaraka wa tacaala cimrigooda iyo camalkooda iyo aakhiradooda iyo adduunkoodaba ha u barakeeyo ayaan shahaado sharafka mu'assasahan ugu talagalnay sidoo kale macallin Khadar oo runtii aan doon leenahay waa nin dhabar adag waad mahadsan tahay dhammaantood aan leenahay ayaan asagana shahaado ugu talagalnay nin kale oo la yiraahdo runtii asaguna ragga magaalada aasaaska ama laf dhabarta u ahaa kamid ah Sadaam Cabdi Abshir ayaan asagana shahaado sharaf ugu talagalnay saddexdaa shakhsi baan galabta waxaan ugu talagalnay ka mu'assas ahaan inaan shahaadooyin guddoonsiino iyo arrimo kale oo la socda aad baad mahadsantihiin hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina dada gabayga anigoo yar baa daayimi dhigaye waana deeq ilaahay baxsho laygu dabacaye andaliisha maanto kalu daawaleeyahay indhaweyd badeegaanku khayr buu daldalayaye maxadiiniyaan leenaho darajo koobaad le dugsigiyo taxfiidka ku badan gooba diiniyahe dikrigiyo culumtiyo sharciga shiikhu kama dalo maamul daacadaan lenihiyo macallimin doorle ama kala dambayniyo habsami dadahayn wacaane khayr ilaahay noo doorayo dahaba weeyaane wax yar haddaan dadweynaha u baliifo hawsha maxadka ardada ka soo baxda dhaqamadeeda gabdhuhu 3 dhaqan bay leeyihiin ka soo baxa maxadka wiilashuna 3 dhaqan bay leeyihiin
hal dhaqanna wuu ka dhexeeyaa aad hadalkaa u dhegaysta gabdhaha maxadka ka soo baxaa iyagoo caariyaada oo qaawqaawan oo niman garbaha haysta magaalada ma dhex maraa rajo lagama qabo midda labaad gabdhaha maxadka ka soo baxa habeenkii kuma diboodaan biyaanateerada iyo meelaha meelyowgaas iyo gelgelimaha kuma diboodaan midda saddexaad ma guursadaan nimanka jirida ahoo jeegada iyo xiirto halkan timaha bulbusha fooshaxun kula baxa iyo kuwa maarta surwaalku halkan dabada ka laalaada iyo ma guursadaan waxay guursadaan dadka ugu sharafta badan ama culimada iyo dhalinyarada ha noqoto ama dadka waaweyn oo ducaada ha noqotee saddexda gabdhuhu gaar bay u leeyihiin wiilashuna waxay gaar u leeyihiin inaysan noqon ciyaal weero inaysan jeegada xiiran oo aysan jeegada xiiranin iyo inaysan noqonin dadka sida maaragtay isbaaraystayaalka iyo tuugada iyo nooca ma garan wiilasha maxad ka soo qaran jabiya saddexdaana wiilasha gaar u leh bal aad ugu fiirsada iyo kuliyadda shariicada dadka ka baxa midna waa ka siman yihiin waa midda dhallinyaradii Soomaaliyeed maanta ka dhigtay baabah ka dhigtay hooyooyinkii iyo odayaalkii inay waashaan midda ku kaliftay weeye ma tahriibaan carruuraha ka soo baxa kuliyadda shariicada bal dadka dhan weydiiya hal ilma oo kuliyadda shariicada ka soo baxay oo tahriibay lama helayo aad baan ugu faraxsanahay runtii 2000 bishii koobaad waxbarashada asaasiga ah oo cagaan laga bilaabay macallimiinta wax ka bilowday baan ka mid ahaa aad baan ugu faraxsanahay maanta geed hoostiis iyo meel aan maaragtay u suubsanayn waxbarashada ayaan ku aasaasnay oo ku bilownay maantana waarta maraakiistaas ayaa quruxda badan baa la joogaa iyo iskoolaad aad u fara qurux badan marka waxaan leenahay waa la sii soconayaa wanaaguna waa sii siyaadaya ayaan laga caajisin dhalinyarada waxbaratay oo aadka u qurux badanna waxaan leenahay waxbarashadii miina dhamaynin waa qalin bedelateen qalin bedelashadaas ku sii wada cilmiga lagama dhargo nabi maxamed oo khayr khalqillaah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala culum iyo diinba baray ayaa waxa lagu lahaa qur rabbi sidni cilman nabi maallo waxa tiraahdaa ilaah uu siyaad cilmiga marka cilmigu meel intaha oo ku istaaga ma lahan qofba inbuu ku sii waarsan marka waxa la haro sii socda dhamaantiin waa in salaam